asalaamu calaykum kusoo dhawaada videogeeni labaad ee mabda'a koobaad xaaladda suuqa marka insha allah hadda waxaa suuqa caadi inkaga tusin doonaa saddexda xaaladood oo ka hadalnay saa la socotaan xaaladda koobaad maxay ahayd waa xaalad jihaysan waa suuq jihadaysu ay caddahay marka idin tusiyo suuq kor u kaca idin tusinaa marka hore haddaa idiin sawira intaan u gudagelin mar kale ay idin soo xasuusiyo markuu suuqa kor u kacayo muxuu sameynayaa high low higher high higher low higher high higher low iyo higher high higher low saas u soconaya marka ama waa wuxuu sameynayaa sare hoose sareeya sare hooseeya sare sareeya sare hooseeya sare sareeya sare hooseeya sare marka waa suuq jihadiisu ay caddahay markuu hoos u socdana waa bilcaks hoose sare hooseeya hoose sareeya hoose hooseeya hoose sareeya hoose marka wuxuu sameynayaa lower lows iyo lower highs waa suuq jihadiisu ay caddahay marka caadi aad inkaga tusiyo hadda suuqan waa Aussie CAD inta maxaa waa dailyga muxuu maalinlaha shaxda maalinlaha meesha maxaa uga jeedaan suuqa muxuu sameeyay kor buu u kacay sare hoose sareeya sare sareeya sare because kanu sarahanu ka sareeya marka muxuu waa sareeya sare hooseeya sare marka hoostaana buu ka sareysaa sareeya sare marka waa suuq way caddahay jihadiisu channel line-kaaga intaa soo qaadato xataa si fiican ugu soo waran kartaa wakaasa suuq jihadiisu ay caddahay marka kan waa waxa loo yaqaano suuq kor u kaca ama bullish market marka ay idin tusiyo bearish market haye intaan kasoo bilaaban karnaa hoos u soo dhacay wuxuu sameeyey kor u laabtay hoos u dhacay kor u laabtay wax yar hoos u dhacay ma inta ka bilaaban kartaa hoos u soo dhacay kor u laabtay hoos u soo dhacay kor u laabtay hoos u soo dhacay kor u laabtay marka kanna waa suuq sameynaya lower lows iyo lower highs waa waxa loo yaqaan bearish market ama suuq hoos u dhaca kan laftarkiisa waxa soo qaadan kartaa channel line-kaaga waa sawiran kartaa halkaas perfect suuq jihaysan waaye marka waa xaaladda koobaad waa xaalad aad iyo aad u fiican tahay suuqa waxaa sameyn kartaa mar walba suuqa dib u laabashada soo dhameeyo ka faa'iideysan kartaa kor oo la raaci kartaa inta xataa hoos oo la soo dhici kartaa kor oo la raaci kartaa marka istaraatiijiyaashana way ka faa'iideystaan xaaladda labaad ay idin tusiyo xaaladda labaad maxay ahayd yaa xasuusto waxay ahayd suuq isku noqnoqosho ah ranging market waa suuq laba meelood u dhexeeya marka kan hadda laftarkiisa waa Aussie CAD waxaa rabaa idiin sheego qasab maahan suuq inuu hal xaalad ku jiro weligiis waa isbedelaysaa xaaladihiisa isbedelayso hadda saa ujeedaan suuqan Aussie CAD inta wuu jihaysnaa si fiican u socday markuu meeshan soo gaaray muxuu bilaabay range labadan market isku noqnoqosho mar walba meeshan imaado kor u kacaya mar walba inta imaado hoos u dhacaya wax yar uu jabiyay laakiin waa kaasa kor u kacay hoos u soo dhacay marka waa suuq rangina tan marka suuq range maxaa lagu gartaa waa suuq ku noqnoqonaya una dhaxeeyo laba qiimood idin sawira inta iyo inta waa suuq xataa waqtiga gaban hadaa fiirisid wuu jihaysan yahay saan u jihaysan yahay mararka qaarkoodna ma jihaysno saan iska yahay soo dhacaya double bottom camal sameyn karaa kor u laabanaya waa suuq u dhaxeeyo labadan qiimo marka waxaa sameyn kartaa mar walba inta joogo waa ka faa'iideysan kartaa kor oo la raaci kartaa mar walba inta joogo hoos oo la dhici kartaa by the way guys waxaan rabaa inay idin xasuusiyo mar kale waxaan istaraatiijiyad ma ahan waxaa baranaysaan suuqa u shaqeeyo sida loo falanqeeyo istaraatiijiyad ma ahan qaab sida suuqa lagu galo waa istaraatiijiyada isticmaali kartaan iyo shuruucdeeda hoos casharada hoose marka aniga ma ahan waxaan ma idin dhahayo meeshaan mar walba joogo iska gala waxaa u baahan tihiin shuruuc hal mabda bas ma la isticmaalo mabaadi'da oo dhan baa la isla isticmaalaa haya ka socona idin tusiyo xaaladda ugu dambaysa yaa xasuusto waxay ahayd choppy market waa suuq goos badan haye waa kana marka suuq goos badan maxaa lagu gartaa intaanan idin tusin okay waxaan iska celiya suuq goos badan maxaa ka qaldan waa inaan dhaha delete waxaan iska delete karay inta taana hoosa rabaa inaan usoo dhigo marka suuq goos badan maxaa lagu gartaa brushka soo qaato waa suuq sidana kor u kacaya waxay sideeda uu jihaysan yahay
inta markuu imaado ay isleedahay ka faa'iidayso muxuu sameynayaa hoos usoo dhacayaa haye inta usoo laabanaya inta isleedahay hoos ula siraac muxuu sameynayaa kor uu sii aadayaa waa suuq goos badan aanan jihaysnayn marba dhinac u socda marka waxaa rabaa inaa idin xasuusiyo suuqa markuu goos badan yahay ha ka faa'iidaysanina ka leexda ma fiicno aa idin tusiyo inta idinka tusinaa suuqa euro dollar inta wuu jihaysnaa inta xataa laftarkeeda markaas muxuu bilaabay inuu hal mar kor aado hoos usoo dhaco kor aado hoos marka waa suuq wareersan aanan jihaysnayn marka wataasaa xaaladda ugu dambeysay waa midaas inta laftarkeeda xataa mid kale laga arki karaa kana hoos u socdaa double top kor u aaday meeshaas leeda kor ula siraac hoos u soo aaday marka waa suuq inta xataa waxaa la dhihi karaa waa suuq aanan jihaysnayn marka insha Allah casharkeenan ama videogeena labaad ee mabda'a koobaad intaas kusoo gabagabeynaya waxaa sameysaan mabda' walba markaasaan u fiirsataan practice ku sameeya trading view furta practice ku sameeya insha Allah xaaladaha dhan raadiya adinkoo si fiican u fahmin ha u gudbina xaaladda kale insha Allah ama mabda'a kale ha u gudbina insha Allah taala. Assalamu alaykum.